بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم أيها الأحبة المحترمين. maanta waxaan halkan ku soo gudbinaynaa qiso ku saabsan wiil dhalinyaro ah oo dadka dhowrsoon ka mid ah haddana mutadayin ah oo dadka ahludiinka ah kaas oo ku noolaa waddanka Sacuudi Arabiya ayaa waxa dhacday waqtiyada kamida ayaa dhaqaalaha sidii u haystay baa waxa ka galay gaabis deetana shaqadii fiicneedu hayay iyo wixii uu isla waayay sidaas awgeed ayaa uu muddo waxa ay kala baadeen dadkii ay asxaabta iyo dariska iyo ehelka iyo ay ahaayeen oo ay isbooqbooqan jireen muddo kadib ayaa waxa uu la kulmay nin oday ah oo kamida dadka ay aadka tixgelinta weyn ay isku hayaan macrifada weyn ay isku leeyihiin hadii la sheekaystay la is salaamay la is xog wareystay kadib ayaa waxa uu hadalkii ugu daray ninkii dhalinyarada ahaa odaygii shaxaaji hebelow inkastoo xaalkayga dhaqaalowsan fiicnayn haddana waxaan jeclaysanayaa buu yidhi inaan gabadh kaasoo doono oo gabdhahaaga mid ka mid ah aan guursado odaygii baa wuxuu ku yidhi dhaqaale la'aanna waad ka cabanaysaa haddana guur baad rabtaa arrinkaagu waa sidee markaasaa ku yidhi arrintaas waxba ka warorin buu ku yidhi laakiin ii sheeg meherka inteed igu kalifaysaa meher intee baad iga rabtaa inaan ka bixiyo gabadhaada odaygii isagoo qoslaya ayaa wuxuu ku yidhi 70,000 oo riyaalka Sacuudiga ah riyaalka Sacuudiga 70,000 taqriiban waa lacag u dhigmaysa 18,600 oo dollar iyo waliba jajab ninkii dhalinyarada ahaa wuxuu yidhi waa yahay odaygii wuxuu yidhi lacagtaas inteed ka keenaysaa ninkii dhalinyarada ahaa wuxuu odaygii ku yidhi ha ka warwarin saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaan akhrinayaa 70,000 oo jeer waxaan ilaahay ka rajaynayaa qarashka meherka in aan helo sidii baa sheekayar kadib la isku macasalaameeyay oo lagu kala tagay ninkii dhalinyarada ahaa waxa uu tagay gurigiisii waxaanu u fariistay oo uu sijaayada ama saliga u dhigtay inuu saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam isagoo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku kalsoon in uu dambigiisana dhaafayo hamigiisa iyo muraadkiisana uu siinayo inuu saliga nabiga alayhi salatu wasalaam uu akhriyo 70,000 oo jeer ayaa uu niyada gashaday saligii ayuu bilaabay اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كن أيو أخريي كن لباد أيو كدري سيدي أيو كوذي مركي ومريو لباتن كن إنو أخريي سلق النبي صلى الله عليه وسلم أيا waxa soo dhacay telefonkiisii waxaana soo wacay odaygii uu rabay in uu xididka la noqdo macrifada weyn iyo kalsoonida weyn ay ka dhaxaysay markaas uu salaamay salaan kadibna wuxuu yiri waanu fariisanay ka qoys ahaan waxaan isla garanay meherka inaanu kaaga dhigno 20,000 oo riyaalka Sacuudiga ah 20,000 oo riyaalka Sacuudiga ah hadii dollar loo bedelo taqriiban waxay noqonaysaa 5,300 iyo 20 xoogaas meelahaas oo dollar yarka dhalinyarada ah waxa uu ku yiri si qalbisan waa yahay isla markaas 20,000 riyaal ayaanu ka dhignay leeyahay isaguna uu maraya saliga nabiga alayhi salatu wasalaam 20,000 oo jeer wax lacag ah gacanta kuma hayo laakiin si qalbisan iyo niyadsan ayuu ku yiri waan aqbalay waa yahay kadib telefonkii hadduu ka baxay
isla teleefonkii waxa soo galay abtigii haddii la is salaamay oo kadibna abtigii wuxuu ku yidhi waxaan maqlay inaad rabto inaad guursanayso isoo mar waayahay buu yidhi ninkii dhalinyarada ahaa isaga oo rajo badan ay ka muuqato oo ilaahay subxaana wa tacaala rajo fiican ka qaba ayaa isdiyaariyey waxaanu tegay gurigii abtigii soo dhoweyn kadib haddii la sheekaystay abtigii markii uu soo macasalaameynayey waxa uu soo dhiibay baqshad ay lacag ku jirto isaga oo leh xoogaa yaro oo lacag ayaa ku jirta qarashkaas waxaad u kaashataa yacni guurka aad gelayso yacni kaalmaysi ayuu ku yidhi ninkii dhalinyarada ahaa markii uu soo baxay ee uu xaggii gurigiisa u soo baxay ayaa waxa uu furay baqshadii mise waxa ku jirta 20,000 oo riyaalka sacuudiga ah waana qarashkii laga rabay meherka sidii ayaa uu markaas meherkii uu ku galay arrintiina ilaahay subxaanahu wa tacaala uu fududeeyey اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصدني وقصة قيبك قصوينك قيمها بدن أي صوت بيان ولا لها سلق النبي عليه الصلاة والسلام سيدا قلبك وقصلي النبي عليه الصلاة والسلام إلهينا سبحانه وتعالى يقينتك قبا قف كستا إنك مد وسلق النبي صلى الله عليه وسلم دائمة سقو إلهي كوكالصون سبحانه وتعالى مراد كيسا وحوال أو كستا أيوه لدونا بإذن الله تعالى إن شاء الله قصوينك وانصوب دينينا سيدا يحط صدين ولا له waxaan insha Allah soo bandhigi doonaa siiqo kale oo iyaduna ilaahay idamkiis faraj fara badan lagu helayo tan iyo kulantidana dambe waxaan idinkaga tagayaa astawdiicukumullah alladhi la tudii'u wadaa'i'ahu fi amaanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه الأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم